ummadayda sharafta leh Soomaaliyo idil hadii ay ururshaan awoodooda xoog leh bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa ala zalimin akhiyarta sharafta leh waxaan dhamaan idinku salaamayaa salaamta islaamka Ramadan Kareem kullu aamun wa antum bikhair taban waxaan ku jirnaa tobankii dambe ee Ramadaanka ayaan ku jirnaa waxaa marka aan isweydiinaynaa maanta maxaa mudan inaan ku sagootino bisha Ramadaan ee kariimka ah maxaa quruxsan inaan ku sagootino ayaan isweydiinaynaa maanta runahaan bisha Ramadaan muslimiintu way yaqaanaan fadligeeda koobaad waxaa kamid ah ummadihii hore sida ay diintu inoo sheegtay inuu waajib ku yahay inay soomaan inaguna inaan soonno inay waajib tahay waxa weeye ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ya ayyuhalladheena aamanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba ala alladheena min qablikum idan waxa weeye waa fadli ay bilaha kale kaga duwan tahay inay ummadii hore soomi jirtay ummadii hore inaguna aan soomayno fadligeeda waxaa kamida qayb kamida waxaa kamida oo qaybta ugu culus ah quraanka ilaahi subhanahu wa ta'ala illa soo dejiyay bisha Ramadaan isagoo dhameystiran baytul izz oo samada inoogu dhow adduunyada ugu dhow illa keenay oo halka 23 sano iyar malku jibriil uu nabi maxamed u soo siinayay alayhi salatu wassalaam nabiguna inaga inoo keeni jiray waa fadligeeda oo ah diintii kitaabka ilaahay lagu soo khatimay adyaanta oo dhan iyo nabi maxamed alayhi salatu wassalaam ambadi lagu soo khatimay hawshaas culayska badanna Ramadaan dhexdiisa ayay dhacdayo waa fadli bishana ay bilaha kale kaga duwan tahay weeye waxa bishana ay kaga duwan tahay bilaha kale habeen laylatul qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr khayrun min alf shahr bil saddex bil toban bil ka habeen uu ka badan yahay ajirkeedu uu ka khayr badan yahay kun bilood oo laga wado 3 sano iyo 4 bilood wax dhan ayay ka fadli badan tahay bishaasi fadligaasi meel ku dhamaana ilaahay u baa og waxa dhici karta inay malaayiin habeen oo kale ka sii badan tahay ayaa suuragala saadaraadii taasina waa fadli kale quraanka habeenka lagu soo beegay oo ilaahay u doortayna habeenka laylatul qadarka aweeye laylatul qadarka marka muxuu yahay taban waa habeen ramadaanka dhexdiisa oo quraanka la soo dejiyay oo ilaahay ugu talagalay subhanahu wa ta'ala ummadeena umrigeeda in lagu dheereeyo oo ruuxii ilaahay intuu caabudo soo shuruudiisi iyo arkaantiisi wata lagana ilaaliyo wax kasta oo isaga buriya ama ha ahaado fasaad iyo dulmi ha ahaado ama hadal xun oo ka tagay ha ahaado wax kasta hadii laga ilaaliyo ilaahay dartiina loo soomo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siinayaa ajri oo yaab leh oo u dhigma hadii ilaahay aqbalo 3 sano oo bil walba oo adiga soonto oo ilaahay ka aqbalo 10 dambe meeshuu ku jira marka waa maalintee nabi maxamed alayhi salatu wassalaam wuxuu yiri anoo raba inaan idin sheego asxaabay ayaan imid masjidkan laba ruux oo waxaan loo baahnayn dhaxmareen ayaa wada hadlay hadalka daraadi baa la halmaansiiyay markaas madaxayga laga tirtiray laakiin waxaad ka raadisaa buu yiri todobada dambe ee bisha Ramadaan ka raadiya sidaas marka 10ka dambe muslimiintu ay xoog u saaraan todobada dambe taharru fi sab'il awaakhir todobada dambe ayuu nabigu alayhi salatu wassalaam hal laga raadiyo macnaheedu waxa weeye laylatul qadr wuxuu ku jiraa 10ka dambe wuxuu ku sii jiraa 7da dambe wuxuu ku sii jiraa maalin dhaafka sida hadii maalin dhaaf leh waa 22 waa 23 waa 25 waa 27 waa 29 hadii laakiin taharruf fi sab'il awaakhir ay noqoto waxay ka bilaabanaysaa marka 25ka iyo 27ka iyo 29ka sida way marka sida muslimiintu ay sida xoog gale ay taacada ugu dadaalayaan inkastoo ay munaasib tahay markastaba illa dadaalo hadii marka sida aanu nimaadno waxa la naga raba inaan ku sagootino ee ugu horeeya shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas
وبالله سود دجيي وسود دجيي قرآن كان وحو يهي بين آدم كدن إن لغو هاغو ومابكي odan u baahanayni wax kale ay soo ku hagi lahaa haddaad adigu fahamto ood goosatana inaad ku dhaqanto markaas waxa weeye waa hudan linnaasi waa hanuun markaa safrayso jidka aad maraysa waa taqaanaa imise kiiloomitir baa ku hadhay xageed ka baxaysaa meesha u socotaa biyo ma leedahay sahay ma wadataa kaas way hanuunku waa maapka ama khariitada waxa la yiraahdo oo sahanka marka la diraayo ama ciidamada ama reerku guuraayo ama aad meel u socoto ee waxa weeye waa meeshii aad mari lahayd jidkii aad marayd hudan linnaas wa bayinaatin min alhuda wax kasta oo toosanna isaga ayaa ku cadaynaya oo si haba yaraatee aan mugdi lahayn quraanka sidaas loo soo dejiyay quraankaas marka maadaama uu ka yahay bishii ramadaan aan ku jirno tobankii damana aan ku jirno waxa wanaagsan si quruxsan inaan u sagootino dadka koowaad ee lagu sagootinayo ee ramadaan fadligiisa maadaama uu saayahay muslimiintu waxay aad u yaqaanaan oo ilaahay mahadi ah quraanka ila akhristo waa fadliga qayb kamid ah salaatul leylka iyo taraawixda iyo tahajjudka iyo waxa soo dhan waxa la rabaa in qayb kamid aad waqtigaaga geliso quraanka akhrintiisana qayb kamid aad waqtigaaga geliso ducada iyo alla bariga waqtigaa sujuudsan tahayna inaad aad u badiso markaas ilaahay loogu sii dhow yahay marka sujuuda lagu jiro inaad wax alla waxaad jeceshahay oo khayr inaad ilaahay barido wixii shar oo ku dhibayana ilaahay ka kaxayo aad ilaahay barido intaasi waxa weeye muslimiintu way ku dadaalaan ummadeena runta marka la yiraahdo xagga cibaadaadka caalamka diimaha kala haysta way ka duwan tahayo waa aad bay ugu dadaalaan meeshaas waxaan marka rabaa qodobka koobaad waa qodobkaas intaad waqtiga qaybiso inta inaad geliso muhiim bay ruux walba u tahay sayidina Aisha radiyallahu anha markii nabiga ay weydiisay ya rasuulallah haddii aan ogaado leelatul qadarka habeenkiisa oo waa la maleynaya intaas ku dhex jira oo gooso duco ilaahay inaan wax bariyo maxaan dhahaa way tiri radiyallahu anha nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu ku yiri waxaa tira allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni de ilaahayow adiga dambi dhaaf kale adiga markaan dambaabno oo xumaan sameynana cafiya cafiskaad ilaahayow jeceshahay oo kariiba tahay ilaahayow icafi ku soo dhahay marka waxa la rabaa inaan ku soo celinno maalmahan iyo habeenadan oo inta ugu badan allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna hada muslimada ku soo tarlimana laakiin xadiisku si wuxuu badan fa'fu anni ilaahu afi ruux walba waxa la rabaa marka ilaahay baryo kolka dadka kale aruurtiisa qaraabadiisa saaxiibadii ummadda muslimka dadka oo dhan inuu u duceeyo ayaa la rabaa qodobkaasi marka waa qodobka koobaad qodobka labaad marka loo yimaado wuxuu noqonayaa maadaama bini aadamku dambiile uu markasta uu dambi galaayo oo bini aadamku fiiri uusan ahayn wax isku toosan markaas bini aadamku iskuma toosna marar badan marka gaf ayaan galaynaa gafka waxaan galaynaa mararka qaarkood inagoon ogeyn baan galaynaa mararka qaarkoodna waxaan galaynaa inagoo og baan u qastaynaa oo intaan iska halmaano ayaan u qastaynaa gafka isaga ah oo ruuxu markasoo cumrigiisu dheeraado sii badanaya gafkiisu waxaa la rabaa qodobka koobaad ee la rabo in laga tooba keeno waa meeshaas waay toobadaas in ilaahayo waan tooba keena aad tira waa muhiim laakiin waxay qiimo ku sii yeelanaysaa markaad go'aan ku qaadato inaadan mar dambe waxaad samayn jirtay xumaantii aad samayn jirtay inaadan mar kale u laaban aad go'aan ku qaadato wixii xumaanee soo samaysana ay kula xumaato oo tira ilaahayo waxaan go'aan ku qaatay inaanan mar kale u laabanin baan go'aan ku qaatay sidaa aad tiraahdo meesha marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dambigaagii hore haddaad tooba saxa la timaado oo shuruudeedii leh oo xuquuqdii dadka aad ka qaaday maalka ka aad celiso oo ummadda wixii adigu aad ka dhacday aad celiso haddii aad sidaas samayso oo ilaahayna u tooba keento oo wixii hore kula xumaadaan ood goosato inaadan dib ugu noqonin ilaahay fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayyi'aatihim xasanaat xumaantii aad soo samaysay ayaa ilaahay wuxuu kugu abaalmarinayaa in ugu bedelo
سادرادي دتك دنبيالك قالي إن قوستان لما ربوا وحال ربا ما أنا وان دنبابي لكن ما أنت وانولهاي توبضي دي واتن سادرادي الله حال ربا إن أن آدو فهمنو فرصة أن هاي السنة جانس كان هاي السنة نولشة إن مركز آد بقوية هاي إن آد لوجا فائدة سقطب كمركز عبادة الله صور دافو قضب كلابات والدنبي عن قالي إن إلهي وحا مركز قاركو دتك مسؤولية دهيا دنبيال وين بيقلان دتك شركات كمسؤول كا جامعات كا دولة كا وزارة مسؤولين تا روحوا كلية أنتم الدنبي بقلا لكن هذا الدنبي أن توبلا هين مجرو روح مسلم كا دنبي كسوق لو خطوا بكيني كرا لكن هذا اللي سئل عليه محاجر وبالبركيسن أو أباهن إنكو أن لقاته قضب كصدحات ونسلايا هاي إنها كسوغوتينو ومضيا هاي oo ku saabsan run ahaan markii loo yimaado innaga nolosheena iyo sayhay iyo qaabkaan u noolahay iyo saas oo kale waxay u baahan tahay inaan aad u fahamno bishan waa bil barakaysan haddii marka bisha waxaa la rabaa maalmaha ku haray go'aamo muhiima inaad ka qaadato qaabka aad ilaahay dambi dhaafkana u weydiisanayso aad ilaahayna ugu dhawaanayso waxaa ka mid ah inaad maalkaaga iyo cilmigaaga iyo waqtigaaga in kamida aad danta guud geliso danta guud waxa laga wadaa maalkaaga inaad tiraahdo anu maalkayga boqolkii zakada waa lagu leeyahay boqolkii 2 iyo bar waa zakada waa lagu leeyahay oo hadaad bixin weydo waxa la isku cadaabi ku jirtaa waxa laga hadlayaa waa maalka kale maalka kale in kamida waxa la rabaa inaad tira ilaahay waxaan waqfi uga dhigay oo nu hadiyeeyay danta guud ee bulshadan maxaa lagu qaban waxaa lagu qabanayaa waqfi ayaa loo yaqaanaa waqfiga wuxuu yahay maalkaaga xoolahaaga in kamida inaad siiso ummadda guud oo ruuxna uusan ruux ka dhigin ood maamul u samayso ood business u samayso ood u ganacsato ood kobciso ay dhici karto maanta $100 ood maanta aad samaysay waqfi ku samaysay inay berita boqolaal ku gaadhaa suuragala inay malaayiin gaadhaa suuragala jidadka lagu dhisayaa isbitaalada lagu dhisayaa gabdhaha masaakiinta isku wada dhimanaya umushooda meel ay ku umulaan baad ugu samayn dadka jaahiliinta meel wax ka bartaan baad ugu samayn waqfigu xad ma laha kolka danta guud xoolahaaga in kamida siiso ilaahayna wuu barakaynayaa waa wax la rabo bulshadeena in lagu tarbiyeeyo inaad maalkaaga in kamida bishan oo kale go'aan ku qaadato ilaahayow danta guud ayaan xoolahan ayaan waxaan go'aan ku qaatay inaan bixiyo waa qadiyo aad iyo aad muhiim u ah waxa kamida waxyaalaha waqfiga oo nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam saddexda shay oo marna hadaad noolaato iyo hadaad dhimato kula soconaya sadaqatun jaariya sidaas oo kale waa maal waxa kamida cilmu yuntafacu bihi cilmi laga faa'iideysto oo faa'iido keena marka qaarkood cilmigaasi adiga ayaa ruuxa toos u bari kara ilaahay mahadi haddaadan toos u bari karina si dadba baad u bari kartaayo macallimiinta taqaana iyo culimada taqaana ayaad adigu intaad kafaala qaado ood xoolo siiso ayay dadka wax barayaan sida hadda macallimiinta quraanka oo kale dadka iskuulaadka dhiga mushaar loo siiyo dadka jaamacadka oo kale taasaad qayb ka noqon kartaa marka waxaad soo geli cilmu yuntafacu bihi maaha culimada kaliya inay cilmigaas dadka barayaan ma aha adiga oo caama oo diin badan aqoonin ayaad waxaad go'aan ku gaaraysaa inaad ka tagto cilmu yuntafacu bihi markaasaad dugsi quraan furaysaa xoolahaaga siinaysaa iskuul baad furaysaa macallin jaamacad isabaad adigu siinaysaa jaamacadkaad kaalmaynaysaa masjid aan xalaqa lahayn oo darsi lagu aqrinin baad sheekh u keeni kartaa markaasaad adigu kaalmayn kartaa waxaasoo dhan waa cilmu yuntafacu bihi maaha inaad adiga kaliya aad dadka wax baraysa maaha qodobka saddexaadna waladun saalixun يعني مركز لفسيرايو ولد صالح يدعو له ما هذا الشيء بقى صهر مراي سداس معها وحويه ولد صالح يدعو له روح كسا ود ادغو تربيتي او تربيس اتوسسي او هاجاجسي او waxbartay وولد صالح يدعو لك ينقنايا ku aadan dhalin baa dhici karta si dhib inaad janno ugu gasho mararka qaar aad aragto ruux aad maalin wax yar u tagtay oodan adigu warba ka hayninba inaad wax u tartay in kale oo adiga intuu ku yimaado uu ku leeyahay uu iigu dhaartay dadka qaarkii uu iigu dhaartay
habeen iyo maalin ayaan kuu duceeyaa salaad kasta markaan tukadaan kuu duceeyaa wallaahi ruuxaasi wuxuu yahay inaana garanaynin buu ilaahay u ogyahay ilaa hadda waad mahadsantahay baan ku yidhi waxaa dhici karta inaan maalin naseexa yar siiya baa suuragala waxaa dhici karta wuxuu markaa u baahnaa inaan u sameeyo baa suuragala ruuxaan intaa samayn karinna ma jiro dhammaan waan samayn karaa naseexada yartaa ruux baahan ruux wax yar u baahan oo hal kelimo oo yar war waxbaro ayaa ka mid ah yani wax weyn ma aha inaa ilmo yaroo aad iska ciyaari war waxbaro gabar fiican noqo wiil fiican noqo sidaas bisha ramadaan marka waxaa la rabaa wax inoo hara inaan samayno waqfigu marka waa qayb ka mid ah run ahaan marka la yimaado waa qayb ka mid ah qaybta saddexaadna waa taasoo waxaa la rabaa bishan inaad ka tagto wax danta guud ah oo ummadda dhan anfaca inaad ka tagto ayaa la rabaa qodobka shanaad een rabo run ahaan meeshan inaan ku sheego qodobka afraad aasif aan raba meeshan inaan ku sheego innaga bashar baa nahay bini aadamkuna aad iyo aad buu u badan yahay wuu iswada khilaafsan yahayoo bini aadamku waxaa weeye ma aha isku nooc ma aha akhlaaqdooda kala duwan midabkooda kala duwan waxoo dhan baa kala duwan waxaa isweydiin la bisha ramadaan dhaqankaagii hore ma bedeli karnaa dhaqankeennii hore ma bedeli karnaa hawa bedeli karnaa wax kasta wuxuu u baahan yahay inaad go'aan qaadato ayuu u badan yahay in dib inta marka loogu noqdo dhaqankeennii hore aan go'aan ku qaadanno inaan wax badan iska bedello ayaan u baahannahay waxa in la bedelo u baahan waxaa ka mid ah dadka sidaad ula dhaqmayso sidaad u hadlayso sidaad dadka u fiirinayso sidaad uga qoslin sidaad uga xanaajinayso seed uga xanaajisaa dadka markii aad dadka la hadlayso innaga dhaqan waxaan leenahay bulshada soomaalida aad iyo aad u xun oon hubo hawsha fiicanee in badanoo inaga midihi ay samayso inaan ilaahay ka aqbalaynin waa la hubaa maxaa jira ruux sooman oo maanta oo dhan ilay xaguu joogaa kii lugtala xaguu joogaa kii xagga xaguu joogaa gacamay hebel waxaasoo dhan waa wuxuusa ilaah raalli ka ahay maxaa jira ruux kasta magacii aabbi iyo hooye u bixiya in loogu yaraa saxa waxaa muhiim ahoo kale ruuxna inaadan xaqirin haddii marka intaa adoo sooman kii xunkaa aad tidhaahdo ka warran dhaqankaasi xoog buu inagu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya oo ragga saxaabada ugu waaweyn ah ayaa nin wuxuu ku yidhi ina hooye madoobe ayuu ku yidhi ina hooye madoobe ayuu nin ku yidhi nin baa nin ku yidhi nin saxaabiyaho weyn ayaa wuxuu ku yidhi nin saxaabiyahoo kale ina hooye madoobe hooyadaabaa madow buu dhahay markaasaa nabiga warkii soo gaadhay markaasuu yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya buu jaahiliyada waxay noqon kartaa gaalnimo waxay noqon kartaa meel ka sokaysa gaalnimona way noqon kartaa saxaabigii wuxuu yidhi waxaan tamaniyey inaana hadda ka hor soo islaamin oo islaamkaygu uu maanta bilowda waaye waa saxaabada ugu waaweyn waaye ina hooye madoobe markaan bulshadeenna isweydiinno innagoo ramadaan ku jirna maanta kii addoonka ahaa kii kan ahaa kii sidan ahaa kii yani waxaan samaynaynaa bini aadamkii xaawo iyo nebi aadan ay wada dhaleen oo wada sharafta lahaa oon ruux ka fiican jirin waxay dadku ku kala fiican yihiin shaqada ay qabtaan kaliya ku kala fiican yihiin laakiin waxaa yaab leh inaad ruux midabkiisa ku caydo gabadhii madoobayd waa dembi waayo gabadhii timaha adkayd waa dembi waayo kii gaabnaa maya waxaasoo dhan ayuu nabigu ka digaayay saa daraaddeed qur-aanka markay aad aqrinayso yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum baa layidhi dadna yaysan dad xaqirin baa layidhi maxaa jira kuwaa la xaqirayo inay kaa fiicanyiin baa dhici karta walaa nisaa'un min nisaa'in haweenkuna yaysan haweenka xaqirin baa layidhi haweenka laba mar bay aayaddan u digaysaa ta horena dadkaasay ku jiraan yaa ayuha aladiina aamanuu way ku jiraan ta dambana gaar baa loo sheegay dumarka marka waxaa la rabaa waxaa suuragala meeshaas dumarku inay ka dembi badan yihiin markay dadka ka hadlaayaan gabadhaasaa quruxsan tanaa dheer tanaa tima jilicsan tanaa sidana waxyaalaha dumarka khatarta gelinaya oo dhexdooda ah ayay ka mid tahay saa daraaddeed si gaaru ilaahay ugu digay ilaahay isagaa og wuxuu sida gaarka ugu sheegay walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhunna
gabadhaad xaqirayso inay kaa fiicanta baa dhici kartaa marka intaad dib isugu noqoto gabadhaydiyey hooyooy intaad dib isugu noqoto adiguna raggiyow dhammaan intaan dib isugu noqonno waan ku wada jirnaa dembiga inaan nidhaahno ramadaanka laylatul qadarka wuu soo socdaa sidaan filayne dhowrkan habeen buu ku dhex jiraaye waxaa ma iska daynaayo dhaqankeenna ma bedelnaa ma kari karnaa inaan samayno waan kari karnaa waxay u baahan tahay dhaqanka la bedelaayo caado in la bedelo waa wax culays badan laakiin haddana waa wax la bedeli karo waxaan la bedeli karin ma jiro hadduu insaanku go'aan qaato waa la bedeli karaa maalintaana waxay ila tahay dhaqankaasna waa dhaqan u baahan inaan bedelo qodobka afraad oon rabo in run ahaan aan isula fahamno waxa weeye adiga iyo gurigaaga weeye dadweynihii waan ka soo gudubnay laakiin adiga iyo gurigaaga kulligeen waxaan nahay caruur waxaan nahay aabbayaal waxaan nahay hooyayaal waxaan nahay abooto waxaan nahay awow dadku isku dhex jiraan ruux waliba marka guri ayuu ku nool yahay waxaa marka isweydiin leh guriga lagu nool yahay ilaahay wuxuu ugu talagalay wa min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunuu ilayha waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma wax la yaab la waaye gurigaas jannada ah ee ilaahay uu inoo abuuray oo meel lagu nasta oo meel la isku jeclaada oo meel la isugu naxariista oo ilaahay saa ugu talagalay waxaa la rabaa inaynan cadaab ka dhigin baa la rabaa dab lagu gubto inuusan gurigaasi noqon baa la rabaa waajibkaasi wuxuu saaran yahay koow hooyo iyo aabbo hooyo iyo aabbo waxaa la rabaa inay isjeclaadaan jacaylkoodana muujiyaan bishani kuma sii jirto in badan oo Soomaali oo geeska Afrika degan guryahay fadhiyaan maanta in badan oo Soomaali oo adduunka degan oo malaayiinana karoonihii baa guryaha fadhiisiyay in badan oo shaqadii baa laga fadhiistay guryaha la isugu yimid guryaha marka la isugu yimid dib baa ka dhashay guryaha marka la isugu yimid dhaqan aan la aqooni baa ka soo baxayo maba la is aqooni ba maxaa jira 10 saac 12 saac 15 saac la kala maqnaa khaasatan guryaha inta laga tago ayaa waqti dambe la imaan jiray raggu kuma sii jiraba Soomaalida mar dambe marka guriga lagu soo noqon jiray guriyihii sidaa loogu soo noqon jiray marka hadday sugnaato maalintii 6 saac inaad fadhido ama 12 saac fadhido ama marka qaarkood 4 iyo 20 saac fadhido dibta meesha ka imaanaysa waa dib la yaqaan weeye waxa ka imaanaya dib aad iyo aad u xoog badan oo noo la arki jirin baa la arkay markaas aabi iyo hooyo aan isaqoonin ba soo baxay aabba iyo caruur aan isaqoonin way soo baxeen sidee baan ula dhaqmaynaa waxaan ula dhaqmaynaa dhaqankeena inaan wax ka bedelo bishan ramadaan ugu yaraan waa laylatul qadarkii baa soo socda waxaan rabnaa inaan kulligeen si isu wada bedelo oo gurigana noloshiisa aan wax ka bedelo ayaa ila quruxsan marka la fiiriyo ragga Soomaalida guryaha joogi jirin on caruurta shaqo ku lahayn on cuntada karinin on guriga nadaafadiisa aan ka qayb qaadan jirin hadda maanta waxa la rabaa maadaama gurigii aad joogto inaad qayb guriga ka noqotaa laga rabaa waxa la rabaa markay ugu yar tahay cuntada inaad wax ka kariso hadiiba hooyo iyo caruurtaadii iyo ay ku dhahaan annaga karana iska daa inaad qayb ka noqoto ayaa la rabaa cuntadaas inaad qayb ka noqoto guriga nadaafadiisa inaad qayb ka noqoto weelasha in la dhaqo inaad qayb ka noqoto inaad qayb ka noqoto caruurta loo qabeynaayo inaad qayb ka noqoto inaad qayb ka noqoto caruurta nadaafadooda inaad qayb ka noqoto waxaasna wax diidaya ma jiro waa samayn kartaa waa samayn karnaa waan samayn karnaa waxaan joogay taban aniga markii gurigayga aan miitaal ahaan u soo qaato hadda gurigayga baan joogaa magaalada Istanbul baan joogaa weliga iyo allahay 3 bilood oo kaamila gurigayga ma joogin noloshayda mararka qaarkood 12 bilood ayaan 20 maalmood ka yar gurigayga joogi jiray caruur hadda bartay in kamid ah maamadii baan meelo aan iska aqoonin baan iska baranay hadda amaliyan marka aniga markaan fiiriyay waxaan goostay inaan idhaahdo cuntadan wax ka karinaya cuntada anoo arday aan soo bartay
in dhalinyarada Soomaalida cuntada la bari jiray cuntada waxaan ku bartay banaankan ku soo bartay anigoo arday markaan soo bartay cuntada waa aqaana ugu yaraan in kamida si fiican baan u karin karaa basasha waa gogoyn karaa cuntada waa karin karaa bariiska waan karin karaa biyaha iyo waan isku dari karaa waxyaalahaas oo dhan waxaa marka aan idhi aan kariyo waxay dhaheen aabba hawlaad leedahay waxaad qorataa annagaa kugu filan hooye waxay tiri ma annaga kuwa iska daabay dhaheen sidaa markay dhaheen marka ani waxaa igu soo dhacday shaqo la'aan inaan guriga noqonin waxaan ku idhi anigana waxaa igu soo hagaagaya inaan weelasha dhaqo saa daraaddeed guri dad badan joogaan weeyo inta weelahoo dhan baan anigu dhaqaa bakayriga yar malgacadda maasha allah jikadaan nadiifiyaa koobasha intaan dhaqaan tirtiraa marka waxaan rubaa markaan intaas sameeyo carruurtayda iyo xaaskayga walaashay inay ku farxayaan intaa waa hubaa 100% gabadh walba haddii intaa loo sameeyo way ku farxaysaa magaalada Bergen oo Norway ayaan joogay oo muxaadaro ka jeedinayay sanooyin hore 10 sano ka hor markaasaan ragga u naseexaynayay dumarkana gaar baan ugu naseexay raggana gaar ragga markaan la hadlayay waxaan ku idhi waagi aad dumarka masruufi jirtaa waa ka soo gudubteen oo ma joogtaan oo dawladana masruuf idin wada siisaa waagi aad difaac jirteen oo cadow ka ilaalin jirteen ma joogtaano dawlad xoog badan oo iyadu maartay military leh oo police leh ayaa joogto iyada wada ilaalisa gurigiina waa isla joogtaan si marka idinku aad u noqotaan dad sharaf leh oo qaybka guriga dad nadaafada ka qayb galo cuntada karitaankeeda iyo shaaha karitaankiisa iyo culays ma lehe oo ilmaha inta masquulsha geysaan ilmaha soo dhaqan koodo ilmaha u soo qabeeya oo xafaayada ka bedela nin baa isagu waar wuxuu yiri xafaayad ka bedeli mayna dictoro wax kale noo sheegay waxaan ka cabsan baan ku yiri gabadha walaasha ee joogta carruurta ku dhashay inay maalinta damasaan maqlay bac madoobe gabdhuhu marka xanaaqaan nimanka banaanka u soo dhigaan oo in hadda lagama xoog badnaa in bac madoobe inta lagu soo dhigo guriga laga ariyaan ka baqi baan ku aniga marka waajibkan qaata waa intaas waxa inta ay soo xusuusiyeen nabiga kaleey salaatu wasalaam markii isagii oo difaaca ummadda lagu jiro oo ciidankii Madiina Munawwara banaankiisa joogo oo nabiguna la socdo oo dhulka la difaacayo cadawga laga difaacayo ghazawaadka waxa loo yaqaano ayaa saxaabadii la qalay qaar biyay keeneen qaar ba shaqay qabanayeen marka nabiga kaleey salaatu wasalaam intuu fiiriyay buu yiri wa ana wuxuu calayya bijam' al-hatab anigana waxa waajib waa inaan xaabada soo ururiyo marka xaaba miyaa saalan hawshu u cusub nabiga kaleey salaatu wasalaam marka hadaan anigu weelasha cuntada oo dhan aan dhaqo waajib baan qaatay ragga Soomaalida waxaan ka rabaa khayr Allah siiyo waajibaadkaas inay daraf ka wada noqdaano aysan reeraha aysan gabdhaha ku daynin gabdhaha inaysan ku daynin hawsha inay kaligood ay qabtaan markii loo yimaado run ahaan meeshaas waa meel aan ku liidano way waxa kamida sheekada carruurta iyo qoyska dhex maraysa kamida salaada la wada tukanaya kamida yani markii aan ugu badnaa oo hadda aan salaad tukiyo 3 bilood iyo ziyaado aan imaam noqday oo gurigayga anigu dadka tukinayay waaye waa wax oo run ahaan aan ku faraxsanahay inaan guriga inta joogo waa markii u badnaa subax walba markaan wada tukano ruuxii wixii kugu soo dhaca sheeg aan dhahayno oo ruux walba uu maalin darsi nasiinayo oo la wada qoslaayo marka qaar kaftana sheegay waxaan ka wadaa ragga Soomaalidu inay guriyaha qayb ka noqdaan oo ma guriga waxa ugu tabar dara maamada carruurta dhasha gabdhuhuna way ku xigaan inagii oo xoog weyn leh ayayna run ahaan hawshii wax ka qabanin runta marka la yiraahdo intaana waxa ragga Soomaalida gabdhahana waxa la rabaa ragga inay u dadaalaan ay ka farxiyaan oo ragga uusan inagu kicin waa nimanka Soomaalida lahood siba u samaysnaayeen bal iyagan in loo dulqaato gafkooda iyo mashaakilkooda la isaga dulqaato gabdhahana intaas ayaan dhihi lahaa waxaan ka wadaa bisha Ramadaan waxa dhici karta farxad yar oo gelisay carruurtaada oo aad gelisay qoyskaaga inaad janno ku gashaa dhici karta oo habeenkii Laylatul Qadarka aad u qasado inaad waxaan sameyn jirin aad samayso oo ka qosliso oo hadiya siiso oo mabsuud ka dhigto oo raali ka dhigto waxa dhici karta inay qayb ka noqoto yani run ahaan qodobka shanaad ee isleeyahay qodobka lixaad oo isleeyahay uu igu dambeeyaa wuxuu ku saabsan yahay sida aan isu kaalmaysanayno ummadeena say isu kaalmaysanaysaa taban inaan iskaalmaysano
Soomaalidu way iskaalmaysataayo dad waxaan nahay run ahaan dhinacaas aad baa la isu kaalmaysaa haddii marka zamanka koronaha lagu jiro iyo dhibta lagu jiro aan fiirino waa zaman culays weyn buu leeyahay culayska weyn marka waxaa la rabaa inuu fududaado geeska Afrika maanta markaan anigu saa u fiiriyo ama tirakoobyo aan wax ka samaynaba marka la fiiriyo dad aad u badan baa nahay run ahaan afar dal ayaan qayb ka nahay oo 40 milyan aan marna ka yarayn waxa banaanka jira run ahaan oo 2 milyan oo kale ayaa banaanka jira waa dad wada walaalo ah oo saaxiibo ah marmar way kharibaan wax bay sameeyaan laakiin haddana way iswada kaalmaystaan laakiin malaayiinta maanta aan ka hadlayno waxaa la hubaa in kamidii guryahooda inaan cunto lagu karinin waa la hubaa in kamidii inay baahan yihiin waa la hubaa in kamidii inay jiran yihiin waa la hubaa tobankii dambe ee ramadaanna waan ku jirnaa oo ku jirta habeen 3 sano iyo 4 bilood lagu qiyaasay umrigeeda haddii la shaqeeyo oo ilaahay ka aqbala hawshaad qabanaysa mid kamida waa umriga yaana hawl aad soo waday 3 sano iyo 4 bilood bay u dhigantaa oo leelatul qadrku una ku jirin saadaradeed waxaan waajib inagu ah dadkeena inaan si fiican isu kaalmaysano oon isbarno maalmahan oo kale baahida inaan aad ula dirirno oo ruux waliba wuxuu heli karo qaraabadiisa u siiyo saaxiibadii baahi tiro oo jiiraankiisa baahi tiro oo ururada bulshada iyo jamciyaadku ay dadka si gaar ahaan u sii kaalmeeyaan oo ruux kastoo xoolo leh zakadiisana uu bixiyo zakatul fidrigana aan marna la halmaamin oo dadka ugu baahi badan in la siiyo nasiib daradeena qayb kamida waxaa kamida bish Ramadan oo sidan aan nahay ayaa dadka qaarkii waxaaba dhici kartaba xoolihii ummadda ka dhaxeeya si qalada inay u isticmaalaan oo kaalmadii dibadda ka imaanaysay dad ay si gafa u isticmaalaan oo sadaqaadkii la siinaya qaarkood ay guryo ku dhistaan oo daawadii la isu keenay qaarkood ay dawlado ajnabiya ka sii iibsadaan dadkeena qaarkii sida u dhaqmayaan waa sidaasina si inoo cunata marna maaha bishana maba ku sii jirto waa meel khatar ah way marka inoogu naseexayn lahaa kulligeen inaan bishan isbaahi tirno sadaqaadkeena aad u bataan dadka walaalaheena guriyuhu ka dansan yihiin in guryahooda cunto u loo geeyo waxaa kale oo waajiba dhinaca kalena waxaa waajiba xeryaha qaxootiga magaalo walba oo Soomaaliya ku dhex jira dhammaantood xeryahaas in run ahaan isha lagu hayo laana waa dad aan waxba haysanin oo tuulooyinkoodii iyo magaalooyinkoodii ka soo qaxay ayaa nahay marka la isku wada geeyo hawsheena tobanka dambe ee Ramadaan waxay inoo tahay fursad aad u weyn inaan badino wanaaga aan samaynayno ayaa la rabaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu inoogu booriyey ilaahayna uu inoo sheegay ruuxii bishan si sax u sooma isagoo shuruudii soonka dhamaystay iimaanan waxtisaaban u sameeyey oo sidaa ku talagala inuu ilaahay wax walba uu ka aqbalayo oo dambigiisii hor uu soo galay iyo ka maanta uu ku jiro intaba in loo dhaafayo ayuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaan isleeyahay marka fursad aad u fiican ayaan haysanaa dadka Soomaalida waxaan ugu naseexaynayaa caafimaadka inaan ilaalino ayaan ugu naseexaynayaa insaanka caafimaadkiisu ilaahay wuxuu jecel yahay insaanku inuu umri badan inuu wax wanaagsan sameeyo waxa weeye dadka waxa ugu fadli badan ruuxii umrigiisuna amalkiisuna wanaagsanaado man taala umruhu wa hasuna amaluhu adiga markaa inaad jira raadsato ilaahay uguma dhawaanaysid masjidka salaadiisa waxa maanta kaaga fadli badan inaad guriga ku tukatid salaada ciida inaad masaajida iyo meelaha dadku isugu imaanayaan oo jirada laga soo qaadi aad ku tukato waxa kaaga fadli badan inaad guriga ku tukatid salaadu tii waajibka ahayd waxa ka wanaagsan inaad guriga ku samaysid ta sunnada ana si kasoy tahay guriga inaad ku samaysid baa kaaga wanaagsan maxaa jira asxaabu rasuulillaahina sidaas ay samayn jireen oo markay mushkilad timaado oo jirooy yimaadaan dadka waa la kala kaxayn jiray markii roob yardo ama dhibaato yar timaadana guriyaha ku tukada la dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ala sallu fi rihaalikum dhihi jiray
culimada waxaan ugu naseexaynayaa inay ilaahay ka cabsadaan oo dadka diinta si sax ah u fasiraan masaajidka waxa loo dhisay in lagu tukado ee in jira la raadsado looganin abadan mafaatida adduunka ugu cilmi badanna arrintaa way isku wada raaceen waxaa marka la rabaa jiradu way iska dhammaan doontaa masaajidana waa loo noqon doonaaye in hadda dadkii oo wada xanuunsanaya aan meel la isugu geynin oo culimadu dadka fatwadaas ay gaadhsiiyaan way yaqaanaan culimadu diinta waxay ka cabsanayaan waxyaalo kale looma cudur daaraayo maxaa jira maanta boqolaal ruux baa yaa la duugayaa waa ogtiin dalkeenna cidna ma sheegayso daawo fiicanna ma laha saa daraaddeed waxaan ugu naseexaynayaa ciidaha in gaargaar loo kala tukado oo dadku ayna meelo badan isugu imaaneen guryahooda iyo xaafadahooda iyagoo kala fofog iskaga tukadaan meeshaas sadaqaadkana aad loo badiyo waxaan warkayga ku soo ururinayaa qodobada aan sheegnay oo quraanka iyo uu ugu weyn yahay quraanka iyo salaatu tahajjudka iyo taraawiixda iyo ducada in aad loo badiyo dambi dhaaf in ilaahay toos loo weydiisto oo laga tooba keeno oo la goosto inaan lagu noqonin maalkeena iyo cilmigeena inaan ka samayno wax nolosheena markaan dhimanno inaga dambeeya oo danta guud lagu qabto calaaqada dadka aan la leenahay iyo afxumada aan samayno mararka qaarkood ee caadooyin xun baan leenahay inaan iska dayno oo nabi wuxuu yidhi dadka waxaa iigu dhow oon ugu jeclahay dadka ugu akhlaaq badan reerka aad ka dhalatay ee qoyska aad tahay caruur iyo dumar iyo rag hal qoys baa la wada yahay qoyska markaad la joogto oo aad la joogto guriga inaad qayb ka noqoto oodan noqonin ruux marti guriga kuwa inaadan noqonin qodobka lixaad ee ugu dambeeyana wuxuu inoo ahaa in dhammaanteen bisha ramadaan dadku way baahan yihiin in la isu wada kaalmeeyo waxaan ku soo ururin lahaa labadan bayd ee maansada ah yarta maadaama Soomaalidu ay iska jecel yihiin maansooyinka iyo saasoo kale ummadayda sharafta leh Soomaaliyo idil haddii ay ururshaan awoodooda xoogga leh ihsaan iyo samaan iyo islaamkana ku daabaan ibtiliya dhibaatiyo baahi maysan aragteen iridaha shisheeyana tuugsi looma aadeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shukran jaziilan